kulan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada mar kale iyo weliba xubin kale oo ku saabsan wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaan ku eegi doonaa. xubintan qodobada aad kaga bogan doontaan waxaa ka mid ah xiisada u dhaxaysa Algeria iyo weliba Morocco oo mar kale si laba lixaadsanaysa isla markaana aasaasan colaadeed oo la dareemayo. sidoo kale qodobada tabinteena aan kugu hayo waxaa sidoo kale ka mid ah madaxweynaha Mareykanka iyo weliba booqashadiisa dalkaasi Shiinaha iyo weliba ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran oo iyaguna soo saaray bayaan isla markaana ay ugu hanjabayaan maraakiibta maraysa marinbiyoodka Hormuz. sidoo kale waxaan idinkugu haynaa oo barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa mid ka mid ah askartii marka u dhalatay dalka Mareykanka ee ku sugnay dalka Morocco oo geeriyooday weliba meydkiisa waa la helay. wararkii kale ee ugu dambeeyay soo ururin doonaa isla markaana ku soo gudbin doonaa. soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan. halkani waa Warweyn TV, waa markaasi 14 bisha shanaad ee May ee sanadka 2026 taariikhduna waxay ku beegan tahay maalmo Khamiis ah waana 14 bisha. soo dhawaada aanu ku bilownay saacadihii ugu dambeeyay waxaa haystay baraha bulshada isla markaana aad looga hadlayay arinta ku saabsan booqashadii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tagay Imaaraadka Carabta. haddaba Imaaraadku bayaan bay soo saareen saacadihii ugu dambeeyay si cad ayayna u beeniyeen marka laga hadlayo arintan. xogtu waxay intaa ku daraysaa in arintu ayba markaa intii la filayay ay ka ballaaran tahay. weliba Iran ayaa si baan u garaacday maalmihii dagaaladu ay soconayeen deegaanadaasi, waxaana iyagu ay ku andacoonayeen sababta ugu weyn ay ku tilmaamayeen in arinku uusan ahayn kaliya in afka ay ka taageerayaan balse dhaqdhaqaaq uu jiro oo ay markaa xitaa tilmaamayeen in xadkoodu laga soo weeraray oo dhulka Imaaraadka Carabta weerar laga qaadayo si loo beegsado gudaha dalkaasi Iran. hadda waxaa hadlay afayeenkii hore ciidamada ciidamada Israa'iil ka tirsanaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu afayeen waxa lagu magacaabaa Zaif Agmon. ninkan waxa uu isagu shaaciyay in Netanyahu isagu ku wehelinayo booqashadaas. aniga ayaaba la socday oo markii halka la tagayay anaaba wehelinaya Netanyahu ayuu iska soo jaray ninkan. sidoo kale wuxuu ka hadlay arin kale oo aan caadi ahayn. Agmon wuxuu sheegay in Netanyahu kulan qarsoodi la yeeshay madaxweynaha Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed. wuxuu sidoo kale tilmaamay soo dhaweynta Imaaraadka inay u ekayd boqortooyada kuwa loo sameeyo oo kale ayaa nala ku soo dhaweeyay buu leeyahay. wuxuu tilmaamay madaxda Imaaraadka iyo weliba xubnaha qoyska boqortooyada ka tirsan in si weyn ugu faraxsanaayeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil booqashada uu ku tagay gudaha Imaaraadka Carabta. Agmon ayaa isagu xusay in Mohammed bin Zayed uu isagu sheegay in Netan si gaar ah uu ugu qaaday airportka garoonka magaalada. sidoo kale waxaa markaa la tilmaamayaa garoonka Al Ain in uu ahaa halkii uu ka degamo magaalada Al Ain markaasi. weliba wargeyska caanka ee Wall Street Journal ayaa faahfaahin ka bixiyay, wuxuuna sheegayaa 26 bishii Maarso in waqtigaasi ay ahayd waqtiga madaxweynaha dalkaasi Imaaraadka Carabta uu isagu qaabilay ra'iisul wasaaraha Israa'iil. goobaha dabagalada ee duulimaadyada ayaa waxay muujinayaan in laba diyaaradood oo khaas ah maalintaas ay ka duuleen Tel Aviv isla markaana ay ku degeen magaalada Al Ain ee Imaaraadka Carabta kadibna ay ku laabteen Israa'iil 6 saacadood kadib. macnaha waxaa hadda faahfaahinada la helayo la sheegaya 6 saacadood inay qaadatay booqashada markaa ra'iisul wasaare Netanyahu iyo weliba Mohammed. hadalka Agmon ayaa yimid kadib markii xafiiska Netanyahu saacad uu isagu sheegay booqasho qarsoodi ah Imaaraadka uu ku tagay xilligii dagaalka Iran uu socday isla markaana uu la kulmay Mohammed bin Zayed. sidoo kale waxaa la tilmaamay xafiiska Netanyahu isaguna inuu sheegay in booqashadan ay markaa sababtay waxa loogu yeeray horumaradii taariikhiga ah ee ku yimid xiriirkii Israa'iil iyo weliba Imaaraadka Carabta sida hadalka ay u dhigeen. haddaba wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka Marco Rubio ayaa NBC la hadlay. wuxuu yiri anagu ma dalbanayno caawimaad aanu ka helno Shiinaha, umana baahnin waqti xaadirkan caawinteeda. tani waxay ka dambeysay booqashada marka la eego madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu ku bixinayo dalkaasi Shiinaha iyo weliba Shiinaha oo la hordhigay qodobo dhowr oo Mareykanka la rabo inuu ka caawiyo sida Iran oo saacad Iraaniyiinta u sheegeen inay waxa ugu weyn hadda daneynayaan ay tahay sidii loo furi lahaa marinbiyoodka Hormuz dagaalkana loo joojin lahaa. laakiin Trump wuxuu rabaa iyadoon dagaalka la joojin cunaqabataynta la qaadin in loo furo marinbiyoodka Hormuz, taasoo adkeynaysa isla markaana aysan sinaba u ogolaan kareynin ciidamada dalkaasi Iran. wararka soo baxay waxay sidoo kale sheegayaan mas'uul ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka dalkaasi Iran in si toos ah uu isagu u hadlay isla markaana yiri mowqifka Iran maraakiibtii anagu
nagu soo xadgudubto ama maraakiibta laga leeyahay dalalka nagu soo xadgudbay wax iska bedelay habeeraatee ma jiraan buu leeyahay mowqifkayaga sidii shalay aan ahayn ayaanu nahay sidaas daraaddeed wax isbedela hadda aan samaynayno maba jiri doonaan bay leeyihin marka la eego arrinta Hormuz suurtagal uma aha inay halkaasi ay maraan halkaas maba mari doonaan saas buu markaasi tilmaamayaa mas-uulkan ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka waxaa jira saacadihii ugu dambeeyay arrimo aad looga hadlayo oo ku saabsan suurtagalnimada dagaal dhex mara Algeria iyo weliba Morocco labada dal xad ayaa ka dhaxeeya khilaafaad badan oo ka dhaxeeya laakiin maalinta ka dambaysa waxaad arkaysaa dhinacba dowladda inuu sameynayo isla markaana uu ku dadaalayo sidii ugu muujin lahaa weliba dhinaca markaa ka horjeeda uu qalbigiisa ugu abuuri lahaa niyad-jab iyo weliba cabsi horta waxaa intaa ku daraysa saacadihii ugu dambeeyay ciidamada dalkaasi Algeria ayaa waxay sameeyeen dowladda xooggan weliba rasaas nool iyagu ay ku tababaranayeen ciidamada dalkaasi waxaa loogu magac daray Fakhr 2026 waxaa leeyahay ilaa 40 qaybood oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Algeria ayaa ka qayb noqday Algeria iyaga iyo weliba markaas reer galbeedka aad bay u kala fogyiin siyaasadeedana waxaa la tilmaamayaa inay tahay siyaasadii dhulkii 1 milyan shahiid iyagu markaasi gaaray amaba uu ka geeriyooday xogtu waxay tilmaamaysaa in la arkay saacadihii ugu dambeeyay isla markaana faahfaahinno dhowr laga bixiyay dowladtuskaasi oo lagu soo bandhigay rasaas aan caadi ahayn waxaa ka qayb qaatay diyaaradaha dagaalka ee nooca ruushka uu farsameeyo ee Sukhoi meelaha fogfog gaara sidoo kale helikobtaro taangiyo iyo weliba nidaamyo kala duwan oo loo diyaariyay in dalkaasi uu isagu ugu diyaar garoobo mustaqbalka haddii dagaal markaas u dhex mara iyaga iyo weliba Morocco saacadihii ugu dambeeyay dalka Morocco waxaa sidoo kale la xaqiijiyay askari u dhashay dalka Mareykanka in markaasi ay geeriyootay waa gabar askariyada markaa waxaa la helay meedkeeda askarigii labaad ayuuna ahaa meedka la helayo waxaana tababar uu joogay oo tababar military isagu ugu sameynayay askariga hore loo helay iyo weliba gabadha maantaba agagaarka Ras Dara ee dalkaasi Morocco ayaa laga helay ciidamada dalkaasi Mareykanka ayaa bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen kooxaha gurmadka Mareykanka iyo kuwa kale ee Morocco in ay heleen marka la eego meedka askari dumara oo markaa iyadu meedkeeda laga helay god weyn oo ku yaala xeebta 500 oo mitir qiyaastii meesha iyagu ay ku lumeen oo askartaasi lagu waayay waxa la xaqiijiyay askariga la helay oo lagu magacaabi jiray Maria askariyada la helay ayaa lagu magacaabi jiray Maria Simon Collington waxay ka tirsanayd ciidamada difaaca cirka iyo gantaalada gaar ahaan ciidanka madaafiicda meedka askariga labaad ayaa hore loo helay waxaana la yiraahdaa Kendrick Lamont K Jr waxaana la helay 9kii bishii May waxaa la tilmaamayaa labada meyd ayaa waxay ahaayeen kuwa la helay Arbacadii oo marka la eego Mareykanka ayaa hadda waxa uu doonayaa in si adag markaasi ula dagaalamo weliba ma doonayo in isagu Algerianku ay ka guuleystaan Moroccanku waayo Mareykanka Israel waxay aad u taageersiin dowladda Morocco halka Algerianku iyaguna siyaasadooda ay u janjeerto dhankaasi Ruushka haddaba askarta ka qayb galaysay African Lion oo dowladdu caadi ahayn oo ka qayb qaadanayaan ku dhawaad 5,000 askari oo ka kala socda ilaa iyo 40 wadan sida xogtii ugu dambeysay sheegayso ciidamo ka tirsan Israel ayaa ku dhaawacmay diyaarado drones ay ka soo tuureen Hezbollah waqooyiga marka laga waqooyiga Israel ayaa lagu soo tuuray koonfurta dalka Lebanon ayaana gantaaladu ay ka yimaadeen dadkii dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalada iyadoo warbaahinta Israel ay sheegtay in waqti xaadirkan ilaa iyo 3 dhaawac ay ka dhasheen marka laga hadlayo weeraradii ugu dambeeyay ee la geystay ciidamada Israel ayaa waxay sheegayeen askarta dhaawacantay in la dhigay isbitaal markaasi warbaahinta Israelna waxay sheegaysaa inay jiraan ilaa iyo 3 dhaawac qaybo kamidana waxa la sheegay in dhaawacyadoodu aad u culus yihiin wargagayska iyo diicooda xiranood ayaa isaguna waxa uu sheegayaa in drones ku dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamada iyo weliba gawaarin ay yaaleen sidoo kale qasaare kala duwan ay ka dhasheen faahfaahinadii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan telefishinka 12aad Israelna isagu baahiyay in dad ay ku dhaawacmeen 2 ruux oo shaqaale oo shirkad qandaraaslayaal iyo weliba 3 qofood oo deegaanka ayaa la sheegay in ay waxyeelo
kasoo gaartay marka laga hadlayo droniskii ugu dambeeyey ay tuureen xisbiga. shirkad qandaraasla marka la eego idaacadda ayaa waxay sheegtay ciidamada Israa'iil idaacaddoodu shirkadaasi qandaraasla in dhowr shaqaale ay ka dhaawacmeen. waxaa kaloo la sheegay nidaamyada difaaca cirka Israa'iil inay awoodin inay markaa burburiyaan dronta. dhanka kale ciidamada Israa'iil waxay qaadayaan dhowr tallaabo oo la doonayo in wax markaasi laga qabto duqeymaha iyo weliba weerarada ay geysanayaan dagaalyahanada xisbiga. waxaana tani ay imanaysaa waqti Israa'iil maanta ay tiri waqtigii ciyaartii kaftanku waa soo dhamaaday, waxaan rabnaa weerar xoogan iyo dharbaaxo ee Xisbullah inaan ku dhufano. laakiin waxaa la isweydiinayaa aaway heshiiskii xukuumadda joogta magaalada Beirut ee u qaaday dadkeeda koonfurta. haddaba warkii ugu dambeeyey waxaa leeyahay weli waxaa taagan xaaladda isfahamwaaga arrinta baribiyoodka Hormuz iyo weliba buuqa Mareykanka iyo weliba Iran. halkaas ayaa la soo jiidiyay. aad u mahadsantihiin, channel subscribe.